بسم الله الرحمن الرحيم markale kusoo dhawaada barnaamijkeeni fikradiyo buug hadba idin kula wadaagi jiray mid kamida buugta qiimaha badan ee aqriyay aan isleeyahay dadkuna waxbay ka faa'iideyaan ka hor intaanan soo gudbin buugga maanta waxaan jeclahay inaan marka hore ka cudur daarto muddadii bishii barkii ilaa 2 bilood ahayd ee aan hawada ku kala maqnayn bishii Ramadaan baa inaga soo dhex gashay Ilaahay subhanahu wa ta'ala amalkii wanaagsanaa aynu qabanayna aynaga ajirsiiyo buugga toddobaadkan waxa weeye waa buug la yiraahdo Outliers oo qoray suxufi Canadian isla jeerkana qoraa oo la yiraahdo Malcolm Gladwell. Malcolm wuxuu qoray ilaa dhowr buug ilaa 5 buug buu qoray oo dhammaan ay ka mid yihiin muxuu ahaa buugta lagu gadashada badan yahay buugta waxaa ugu caansan The Tipping Point iyo Blink buugan waa buug aragti cusub ka siinaya dadka guuleystay iyo waxa sababa guushooda wuxuu dabagelayaa dadka muxuu ahaa miinadooda hormuudka u ah xilliyadii ay dhasheen deegaamadii ay ku soo koreen guryihii ay ka soo baxeen iyo waxyaabihii kale ay sameyn jireen ee ka dhigay dad ka soo mudbaxa bulshooyinka ay la noolaayeen iyo dadkii ay isku ayniga ahaayeen buuggu maaha buug qofka siinaya tallaabooyin practical ah oo uu qaadi karayo si uu hormuud u noqdo waase buug si cilmiyeysan uga waramaya dadka jaadgooniga iyo isirada ka qayb qaata hormuud noqoshanimadooda maadaama markaan uu buug ahayn buug bixinaya tallaabooyin iyo talooyin practical ah waxaan isku dayayaa inaan u qaybiyo barnaamijka ilaa 2 qaybood qayb aan ku soo gudbinayo fikradaha waaweyn ee buugga ku jira iyo qayb aan isku dayay inaan bal fikradaha buugga ku jira ku soo ururiyo oo aan ka soo bixiyo wixii naga quseeya ee aan dhaqan gelin karayno haddaan qaybta koowaad ku hormaro buuggu wuxuu ku soo bandhigayaa oo aad runtii wax cusub oo ah oo muhiimna u ah in la ogaado in oo ku doodaya Malcolm waxa sameeya dadka hormuudka inaanay ahayn hibooyinkooda iyo garasho badnidooda ama IQ-gooda aad u sareeya wuxuu leeyahay waxa jira waxyaabo ama isiro qarsoon oo qofka ka qayb qaata muxuu ahaa sameyntiisa iyo inuu noqdo qof hormuuda wuxuu leeyahay dad badan oo hormuuda waxay heleen fursado aanay dadku badi helin sida muxuu ahaa habkii loo soo barbaariyay iyo biyaadii ay ku soo barbaareen waxaa ka mid ah fursadaha inay yaraantoodiiba heleen qalab iyo tababaro xirfadooda kor u qaadaya oo ka dhigaya ama muxuu ahaa u fududeynaya inay noqdaan qofka ay doonayaan ama waxa ay doonayaan inay noqdaan ama ku wanaagsanaadaan waxa ay doonayaan inay ku wanaagsanaadaan tusaale wuxuu soo qaadanayaa Bill Gates wuxuu leeyahay 1968kii wuxuu fursad u helay isagoo fasalka 8aad computer kamid ah computeradii ugu horeeyay caalamka oo meelan sida uga fogeynba yaalay oo qof mentorkiisa mid kamid ah mentoradiisa oo muxuu ahaa access u siiyay muddo dhowr iyo 10 sanadooda ayuu computerka isticmaali jiray oo programming ku sameeyay jiray marka wuxuu leeyahay fursadaha ayaa ka qayb qaata qofka uu noqonayo iyo waxa uu ku wanaagsanaanayo sidoo kale wuxuu leeyahay xilliga qofka uu dhashay qayb weyn ayay ka qaadataa qofka guushiisa markii la baaray sooyaalka hantiilayaashii waaweynaa ee Mareykanka ahaa waxa la ogaaday in badan oo kamid ah ay dhasheen waqtigii u dhaxeeyay ama xiliyadii u dhaxeeyay 1860kii ilaa 1870meeyadii waayo xilligaas waxay ahayd baleeyahay waqti uu kacdoonkii warshaduhu karar qaadanayay sidoo kale markii la baaray Silicon Valley oo xudunta tiknoolajiyada California ku taala horugacdaayadii IT-ga iyo entrepreneurska oo dhan waxa leeyahay waxay dhasheen 1953 ilaa intii u dhaxaysay 1956
waayo iyaduna waxay ku soo hagaageen xilli ay da'yar yihiin kacdoonkii kombiyuutarada ama kombiyuutarka waqtigii uu kacdoonkiisu karaar qaadanayay. waxay leeyihiin dadkii dhashay 1890 ilaa 1900 waxay ka nasiib badnaayeen dadkii dhashay wixii ka dambeeyay 1913 waayo waxaa dunida beriga helay bay leeyihiin musiibooyin badan oo ay ka mid ahaayeen muxuu ahaa hargabkii epidemiga ahaa 1918 ilaa 19 socday oo ay ku nafwaayeen dad gaaraya 20 ilaa 50 milyan. sidoo kale waxay dadka la kowsadeen iyagoo dhalinyaro ah dagaalkii koowaad ee adduunka, sidoo kale depressionkii dhaqaalaha iyo weliba iyagoo dee xilligaa da'yara oo dad dhalinyaro ah oo ay ku soo hagaageen xilligii dadka loo qafaalanaya ama loo kaxaynaya dagaalkii labaad ee adduunka. marka xilliga qofku uu dhasho iyaduna qayb aad u weyn bay ka qaadataa guushiisa. fikradda saddexaad ee muhiimka ah uu Malcolm ka warramayo waxa weeye the 10,000 hours. wuxuu leeyahay guusha qofku kuma xidhna hibadiisa iyo garasho badnidiisa sida inuu IQ-gaaga aad u sarreeyo oo kale. kaliya waxaad u baahan tahay inaad dhexdhexaad ahaato, deedna aad 10,000 oo saacadood aad geliso waxaad doonayso inaad ku wanaagsanaato. culimmadu waxay leeyihiin qofku wuxuu u baahan yahay in IQ-giisu gaadhsiisan yahay ilaa 120 meelaha. waa qaybta u dhaxaysa caadinimada ama averageka iyo cabqariyadda oo ah 120 wixii ka sarreeya. inaad hibo badan tahay iyo in IQ-gaagu heer cabqarnimo gaadhsiisan yahay macnaheedu maaha inaad noqonayso qof guulaysta haddii aanad gelin waqtigii iyo dadaalkii lagaaga baahnaa. daraasaad aad u fara badan uu tilmaamaya wuxuu leeyahay markii la eegay mihnadaha kala duwan ay ka shaqeeyeen dadka hormuudka sida ganacsiga, cayaaraha iyo muxuu ahaa caalamka kombiyuutarka, waxaa la ogaaday in ay dhammaantood wadaageen inay 10,000 oo saacadood geliyeen waxa ay hormuudka ku noqdeen. 10,000 oo saacadood maxay noqonaysaa marka sanad ahaan loo eego? waa muddo 10 sanadooda, 7 cisho ee toddobaadku ka kooban yahay, inaad maalin kasta ilaa 5 saacadood aad geliso qabashada waxaa iyada ah. marka waxaa la ogaaday in mihnadahaas oo dhan dadka heerka caadiga ka jooga ay geliyeen waqti aan ka badnayn 4,000 oo saacadood, halka kuwa dhexdhexaadka ah ay iyaguna geliyeen waxaan ka badnayn ilaa 8,000 oo saacadood, halka dadka fikta sare ka jooga mihnadooda ay ugu yaraan geliyeen 10,000 oo saacadood. marka muhiim maaha qofku inuu waxa ku wanaagsan yahay, muhiimaddu waxa weeye inuu doonayo inuu ku wanaagsanaado deedna uu waqtigaa geliyo 10,000 oo saacadood inuu geliyo. fikradda afraad ee iyadana aadka muhiimka u ah buugga ku jirta waxa weeye wuxuu leeyahay qofka waxaa ka qayb qaata muxuu ahaa guushiisa dhaxalka ummadiisa. wuxuu leeyahay sida muxuu ahaa baaritaankiisa uu ku ogaadayba in nuuca dhaqan qiyameed iyo dhaqan dhaqaale oo qofku ku soo koray ay qayb weyn ka tahay ama qayb weyn ka qaadato guusha qofka. tusaale wuxuu soo qaadanayaa indho yarta oo lagu tilmaamay inay yihiin dad xisaabta ku wanaagsan. wuxuu leeyahay in badan oo dalalka indho yarta ka mid ah sida Shiinaha waa beeraley oo sanadkii beerfalidda waxay geliyaan ilaa 3,000 oo saacadood ay sanadkii geliyaan. taa waxaa sii dheer waxay beertaan buu leeyahay bariiska. bariiskuna ama bariis beeriduna waa ay ka hawl badan tahay beerista muxuu ahaa waxyaabaha kale. wuxuu u baahan yahay diirad saaryo iyo muxuu ahaa aad u xoogan iyo waraab joogto ah, qofkuna aad uga taxadara ayuu u baahan yahay. sidaas la mid ayuu leeyahay xisaabtuna waxay rabtaa juhdi iyo muxuu ahaa diirad saaryo dheeri ah. waxaa sidoo kale ka qayb qaata qofka guushiisa ayuu leeyahay dhaqan qiyameedka bulshadu leedahay ee dhexdeeda laga dhiirageliya. tusaale wuxuu soo qaadanayaa bulshooyinka muxuu ahaa howlkarnimada
ma hard work lagu dhiirageliyo dhexdeeda maaragtay dadka lagaga dhiirageliyo sida indhayarta iyo yahuudda oo kale qayb weyn ayay ka qaadataa qofka guushiisa. malaa soomaalidu haddaan soomaalida eegno dhaqan qiimeedkeeda waxaa ka mid a dhiiranaanta iyo geesinimada. malahayga waa halka ay meel kastoo ay tagaan ama wadan kastoo ay tagaan ay ku dhiiranayaan inay ka abuuraan ganacsiyo aada u waaweyn. mararka qaarkood iyadoo laga yaabo sida soomaalida ganacsatada ku nool South Africa oo kale iyagoo lagu dhibaya meeshii oo lagu diliyo oo lagu laynayo inay tuulooyintay tagaan ay ganacsiyo waaweyn ay ka furaan. marka qayb weyn bay ka qaadanaysaa dhaqan qiyameedka iyo heerka nooca dhaqan dhaqaale ee bulshadu leedahay. qayb weyn ay ka qaadanaysaa qofka iyo samayntiisa iyo qofka uu noqonayo nolosha. inaha waxaan kusoo koobayaa qaybtii hore barnaamijka. qaybta labaad waxaan isku dayay inaan bal 4 qodob aan kusoo ururiyo waxyaabaha aan buugga ka baran karayno. qaybta koowaad waxa weeye inaad isweydiiso oo aad iska dhex raadiso waxa aad doonayso inaad ku wanaagsanaato. maxay baad markaaad qabanayso jacaylka iyo xiisaha aad u qabta darteed aad cunada iyo jiifkaba wiilowda. marka ugu horeysa waa muhiim inaad iska dhex raadiso majaalka aad doonayso inaad hormuudka ka noqoto ama aad ka mid noqotaba. aad baa arrintaa muhiim u tahay. waa marka labaade waa inaad waxaa iyada aad geliso 10,000 saacadood. sidaan hore usoo sheegnay muhiim maaha inaad aada ugu wanaagsan tahay waxaa isaga. muhiimaddu waa inaad jeceshahay inaad ku wanaagsanaatana aad doonayso. marka waxaad u baahan tahay inaad 10,000 saacadood aad geliso. runtii dadkan wada hormuudka majaaladooda hormuudka ka wada ma jiro qof muxuu ahaa markii ay yaraayeen la oran karay waxaasuu noqonaya ama la malayn karay waxa uu noqonayo. dadku waxay eegayaan inta badan Bill Gates-ka maanta, Maxamed Faarax maanta, Messi-ga maanta ama Sheekh Umalka maanta. waxay dadku ilowsan yihiin in intaasoo dhan waxa weeye waa fikta sare muxuu ahaa buurbarafeeda badda. waxaana yidhaahdaan the tip of the iceberg. waa fikta sare uun buurta ama buurbarafeeda badda laga helo. laakiin dadku ma arkaan intii ay dhidid iyo dheecaan u soo qubeen inay soo gaaraan heerka ay maanta joogaan. tusaale mar labaadaan usoo qaadano Bill Gates oo kale. waa sax oo run weeye in uu fursad helay oo ka mid noqday dadku farakuteris ahaa oo computerkii ugu horreeyay caalamka nasiib u helay inay ku bartaan programming iyo wixii lamid ah. laakiin Bill Gates haddana markaad fiiriso dhalinyaronimadiisii oo dhan wuxuu ku soo qaatay programminta software-ka. 12 jirkiisii ilaa iyo 20 jirkiisii waxa lagu leeyahay wuxuunbuu ku bixinaya programming oo ku dhawaad muddo 10 sanadooda oo cimrigiisa ka mid ah maanu arag cadceeda ciyaarna maanu arag oo dad uu la ciyaarayo waqti uu asxaabtiisii la qaato maanu arag. waayo waxa la yiraahdaa waa the 10 dark years oo qof walba oo muxuu ahaa hormuudka majaalkiisa uu soo geliyay waxa uu ku wanaagsanaaday. marka arintaas aad ayay muhiim u tahay 10,000 saacadood. arinta qodobka saddexaad waxa weeye kaliya kuma filna 10,000 saacadood oo kaliya aad meel iska falfadhiisto wax iska qabato. waxaad u baahan tahay deliberate practice. 10,000 saacadood oo aad si qasad iyo taxadar uu ku dheehan yahay aad hawsha u qabato. deliberate practice wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood. qaybta koowaad waxa weeye san hore soo tilmaanayba inaad jeceshahay waxa aad doonayso inaad qabato. waayo ma fududa inaad 10 sanadood aad meel fadhido oo aad waxa kaliya oo diirada saarto oo maalin walba ku celceliso oo aad qabato oo ku celceliso ma sahlana. waa inay jirto dhiirigelin iyo tabar inaad ka hesho waxa qabashadeeda maadaama aad يعني وياي واحد جعشة بركوين القبضة واحد جعشة وين ويا واحد جعشة واد حيسو جوني عاد وقبته أو وقت يوم مركز قبنا يسو عاد وقت اللودو أما وقت جو كوي يستهوا عاد عنا ذي يهرد ده بعد ويلودو
arinta labaad ama qaybta labaad delivery practice ka kooban yahay waxa weeye waa inaad leedahay qorshe cad oo aad garanayso heerarka kala duwan ee aad marayso isla jeerkan aad taqaano heer kasta iyo waxa laga doonayo inaad la timaado stepka saddexaad ama heer qaybta saddexaad waxa weeye waa inaad wax qabadkaaga la wadaagto cid kaaga aqoon badan oo si daacad ah ku siinaysa warcelin ku saabsan waxa aad sii wadayso ay tahay inaad sii wado iyo waxa aad wax ka bedelayso stageka saddexaad afaraadna waxa weeye inaad wixii ku celceliso inaad hawsha dharaar kasta geliso juhdi isku mid ah ama muxuu ahaa hawsha aad qabanayso hadba la heer ah arinta runtii aad ayay muhiim u tahay delivery practice 10,000 saacadood waa inay noqoto 10,000 saacadood oo si qasad iyo taxadar ay ku dheehan tahay oo stepska kala duwan aad u marayso arinta qodobka afraad ee aan kusoo gabagabeynayo xalqadeena waxa weeye wax kaliya one thing wax kaliya inaad marka hore ku wanaagsanaato inta aanad u gudbin wax kale markaad eegto dhammaan dadka fikta sare ka jooga mihnadooda waxaad ogaanaysaa in ay wax kaliya xoog isugu geeyeen ma arkaysid qof 2 ama 3 majaal waqtigiisa wada geliyay haddaad xitaa ku wanaagsan tahay waqtiga iyo ma garanaysaa xawaaraha aqoonta maanta ay ku socoto ayaan ku ogolaanayna ku saabaxin sidaa daraadeed meel kaliya waqtigaaga iyo xoogaaga isugu gee ilaa aad waxa kaga wanaagsanaanaysid waa runtii aad ayay nasiib darro u tahay adigoo raba inaad muxadis noqotid haddana aad muxuu ahaa muxallil siyaasiya aad xilliyada qaar noqotid ama aad mararka qaarkood ciyaaraha iyo ka sheekayntooda iyo wixii magaalada ka socda inaad waqti badan aad ku bixiso oo maalinba aad meel aad xoogaysa ugu geyso waqtigaagu wuu beeldaroobaya waxna kuma wanaagsanaanaysid marka inaasaan kusoo koobayaa barnaamijka maanta runtii waa buug aad u qiimo badan waxaan ka tilmaamayna wax aad u kooban waxaan jeclahay in qof kastoo doonayo inuu horumar gaadho ama uu hormuud u noqdo majaalka uu doonayo inuu hormuudka u noqdo inuu akhriyo oo muxuu ahaa weliba ninka qoraaga buugtiisa oo dhan sida tipping point iyo muxuu ahaa blink labaduba waan idinkula talinayaa ciddii muxuu ahaa doonaysa inay akhriso inay muxuu ahaa shelfiskooda aan laga waayin inaasaan barnaamijka maanta kusoo koobayaa dhammaantii waxaan dirajeynayaa khayraado fara badan waxaa la akhriyo inta maan ku gaajaysan yahay guuli waa weli asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu